بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan jeclahay walaalayaal haddii ay diin joogta Soomaaliyeed gaar ahaan dalka Norway markaan soo warbixin kooban oo ku saabsan carqaladihii baryahan bajaaliyada ka soo wajahayay dhinacyada jinsiyadaha iyo sharciyada. waxaa jira dad Soomaaliyeed oo degan dalka Norway oo loo diiday sharciga Norwejiga ama jinsiyada Norwejiga loo diiday iyada oo markaa lagu eedeynayo in ay ahaayeen laba magaclayaal. dadkaasi waxay deganaayeen dalka Norway muddo dheer, waxay weeye dad shaqeeya, cashuur bixiya, dalkana ka mid noqday. nasiib wanaag waxaa noo suurta gashay dadaal dheer kadib in aanu markaa ku guulaysano in carruurtii ay dadkaasi dhaleen loo ogolaado in ay jinsiyadoodii helaan oo ay iyagu noqdaan Norweji. iyaga kooxdanna waan ku daba jirnaa insha Allah in ay heli doonaan jinsiyada Norwejiga mustaqbalka. waxaa iyaguna jira koox ama dad Soomaaliyeed oo lagala noqday sharciga Norwejiga. arrintaas runtii aanu la qaybsanayno murugada iyo dhibaatada shacabka Soomaaliyeed dadkan ay khusayso ka soo wajahday iyagoo qareemo la xiriiray ayaa haddana imka waxaanu qabanay qareemo si gaar ah arrintan ugu dhuun daloola ama cilmi uga haya ugu leh markaa inaan nala soo xiriirtaan oo aydan markaa aynu iska kaashano sidii arrintan looga midho dhalin lahaa insha Allah sidii sharcigiina laydinku soo celin lahaa. waxaa jira iyaguna dad Soomaaliyeed oo iyaguna degan dalka Norway oo iyaguna qarka u saaran in markaa lagala noqdo jinsiyadii. haddaba waxaa walaalayaal mudan marka aydan heshaan warqadda boosta haddii ay idinku timaado in warqadda loo akhriyo si ay ku jirto deganaan iyo xasilooni isla markaana la fahmo su'aalaha ama ujeedada warqadda ku dheehan. taasi markay dhacdo waana la soo xiriiri kartaan si aynu markaa si wada jira u helo qareemo aqoon gaara u leh oo arrintan ka tala bixiya sidii aynu markaa u heli lahayn xal rasmi ah oo insha Allah aynu uga gungaar lahayn in arrintan xal loogu helo. waxaynu ilaa hadda ka soo hadalnay dhinacii jinsiyada Norwejiga. haddaba dhinacyada deganaanshaha iyo sharciyaduna waxay marayaan ama raacayaan tubtii ay jinsiyaduhu mareen oo kale. qadiyaduhuna waa isku mid. haddaba inta aanu annagu ka xog hayno ma jiro qof Soomaali ah oo lagala noqday jinsiyada Norwejiga ama sharciga oo lagu celiyay meel kale iyadoo laga celinayo dalka Norway. waxaan jecelahay anaan walaalayaal idinla qaybsado in dadaalkii aanu bilownay 5tii bishii June ee sanadkan in uu meel fiican marayo. haddii Ilaahay idmo mustaqbalka dhowna aydu naga heli doontaan xog iyo warbixin faahfaahsan oo arrintaa ku saabsan. haddaba waxaan jecelahay in aan idin sheego in aanu rajo weyn qabno haddii Ilaahay idmo oo uu ka dhici doono dalka Norway isbeddel siyaasadeed kaas oo aynu kaga bixi doono carqaladahan iyo dhibaatadan ina soo wajahay. taasina waxay ku xidhan tahay sida aydan codkiina u isticmaashaan. waxaan idin leeyahay fasax wanaagsan.